kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aynu ku eegi doona xaaladda waqtigan ka taagan Soomaaliya iyo muranka hareeyay madaxda ugu sareysa wadankan. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan. halkani waa channelka Bisla TV oo kala socon doontaan warar sugan, warbixino xasaasi iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaasi oo ay kamid yihiin barnaamijka dhalinyarada, haweenka iyo arrimaha bulshada. daawadayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteena ku xidhan channelka. sidoo kale waxaanu ka codsanaa asxaabta nagu xidhnay inay channelka noo saaraan like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. waxaad nagala socon kartaan bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo Twitter. balanteenu markasta waa channelka Bisla TV. dib u dhiska dawladnimada casriga ee Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 2000 oo la dhisay dawladii ku meel gaarka ahayd iyo ilaa maanta khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa Soomaaliya ayaa ahaa mid soo taagnaa min madaxweyne ra'iisul wasaare ilaa gudoomiye baarlamaan iyadoo mararka qaarna ay xaaladdu meel xun ku dhawaatay. hadda oo hay'adaha dawladda Soomaaliya waqtigoodii dhamaaday ayaa waxa khilaaf xooggan u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. khilaafkooda oo gaadhay in warbaahinta isku mariyaan hadallo iska soo horjeeda kuna loolamaan hay'adaha dawladda. waxa kale oo xarumaha dawladdu u muuqdaan inay dhinacyadu ku kala awood badanayaan. warbixinteenana ayaynu ku eegi doonaa dhowr qodob oo sabab u ah xilligan kala guurka isla markaana ay Soomaaliya isku diyaarisay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada, waxaana ku soo beegmay khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya. waxaa ka qodobada sababay khilaafka labadan mas'uul ee u sareeya Soomaaliya. khilaafka labadan mas'uul ayaa waxa uu bilaabmay markii ra'iisul wasaare Roble uu magaalada Djibouti kula kulmay Uhuru Kenyatta kadib casuumad uu ka helay madaxweyne Kenyatta, laakiin Farmaajo ayaa ku guuleystay inuu hor istaago casuumadaasi oo aan Roble aadin magaalada Nairobi oo casuumadu ka dhici lahayd. xilka qaadistii labada sarkaal oo ka tirsanaa ururka NISA kuwaasi oo xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Roble wixii intaas ka dambeeyayna khilaaf hursanaa ayaa dibadda u soo baxay. fila Soomaaliyana xilligaas si toos ah ugama jawaabin xilka qaadistii ra'iisul wasaare Roble. safarkii ra'iisul wasaare Roble ee Kenya iyo warqadii madaxweyne Farmaajo soo saaray ee ahaa inaan la geli karin heshiis xilligan kala guurka, jawaabtii Roble ee tagitaanka Nairobi iyo imaanshihii wasiirada arrimaha dibadda Kenya ee gudaha Muqdisho, arrimahaasi oo dhan ayaa ahaa ubuucda khilaafka u dhaxeeya labadani mas'uul. shaacinta habraacyada doorashada ee cusub ee dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka, waxaana madaxweyne Farmaajo ka cadhooday habka uu Roble u maareeyay habraacyada. kiiska sarkaalada Ikran Tahliil Faarax oo ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa la waayay. isla hay'adii ay ka shaqeynaysay ayaa marar badan lagu eedeeyay inay afduubtay, laakiin way dafirtay hay'adda NISA. ra'iisul wasaare Roble ayaa soo jeediyay in la fargeliyo arrintani ka hor inta aanu tallaabo qaadin. ay NISA baahisay macluumaad xaaladda uga sii daray, ayna ku sheegtay in la dilay Ikran dilkeedana ay geysteen kooxda Al-Shabaab iyadoo dhankeedana ay Al-Shabaab iska fogeysay eedeymahaasi uga timid NISA. qodobadaas ayaa waxay dhammaantood saldhig u yihiin khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba daawadayaal wixii ka soo kordha xaaladda khilaafka waxaad kala socon kartaan Bisla TV.